injiilka sida Yooxana u qoray cutubka 2 maalintii saddexaad waxa kaana tii Galili jiray aroos Ciise hooyadiisna halkaasay joogtay waxaana arooska loogu yeedhay Ciise iyo hartiisii markii khamrigu dhammaaday Ciise hooyadiis waxay isaga ku tiri khamri ma ay qabaan markaasaa Ciise wuxuu iyada ku yidhi islaan yahay aniga iyo adiga maxaa inoo dhaxeeya saacadaydu weli ma iman kolkaasaa hooyadiis waxay midiidinyadii ku tiri wax kastoo idinku yidhaahdo yeela meeshaas waxaa 6 ashuun oo dhagaxa oo loo dhigay caadada yuhuudda oo daahirinta mid kastaana wuxuu qaadi jiray qiyaas 2 ama 3 metri tas markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi ashuumada biyo ka buuxiya goortaasay buuxiyeen ilaa girgirka kolkaasuu wuxuu ku yidhi ka soo dhura oo u geeya kamiiska arooska madaxda wayna u geeyeen kii madaxda ahaa markuu dhadhamiyey biyihii khamriga